kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa barnaamijkan waxa marti igu ah Maxamed Jaahuur oo kamid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee kubadda basketballka ee magaalada Hargeysa Maxamed dhawaana waxa uu ka soo qayb galay shirweyne caalami ah oo dhalinyarada caalamku ay isugu yimaadeen oo ka dhacay wadanka Ruushka Maxamed marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa Thank you Abdulsalam aad baan kaaga mahad celinaya soo dhaweynta waan dhawahay Maxamedow shirweynaha dhalinyarada adduunka loo qabtay dhalinyarada intee lag baa isugu timid Abdulsalam dhalinyarada isugu timid shirkan waxay kor dhaafaysaa 30,000 oo qof 30,000 oo qof ay kor dhaafaysaa marka waxa markii hore xareystay tiro gaaraysa 300,000 oo qof oo adduunyada kala timid ugu dambeyn tiro 30,000 gaaraysa baa laga soo xushay oo ka kala kooban 188 wadan oo macnaheedu tahay 95% adduunyada way joogtay marka shirkan oo shirkii dhalinyarada adduunka 4 jeer Koreana la qabtay 1980 iyo 1970 iyo 1980 2017 iyo 2024 marka waxa lagu qabtay magaalada Sochi ee deegaanka Krasnodar ee dalka Russia waxaana laga hadlay barnaamijyo kala duwan oo khuseeya arrimaha dhalinyarada adduunka iyo hadda kuwa taagan oo kala duwan oo technology ka mid tahay waxbarashada ka mid tahay sport ka mid yihiin charity ka mid tahay iyo barnaamijyo kala badan ba shirarka ka horeeyay kanimaka iyaga xagga lagu qabtay Maxamed isla raashima lagu qabtay shirkii ka sii horeeyay 2017 waxa lagu qabtay magaalada Sochi oo isla tan lagu qabtay hadda magaalada resort ah oo loogu talagalay in Olympicada lagu qabtay 2014 marka isla magaaladaas lagu qabtay magaalooyinka loo kala duwan oo Moscow ka mid tahay lagu qabtay labadii dhowrkii shir ee kala horeeyay marka Ruushka kaliya ba mar walba martigeliya waxa martigeliya Ruushka dabcan oo isagana soo abaabulay runtii oo waxay ka timid fikradda madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladimir Putin in shir noocan la qabto oo ujeedada laga leeyahay ay tahay sidii bal Russia uu isku barlaa adduunyada muxuu yahay iyo wuxuu capable u yahay maadaama inta badan information khaldan inta badan la gaarsiin meel badan oo kala duwan caalamka marka bal dhinacyadiisa kala duwan dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka dalxiiska dhaqan dhaqaale in bal adduunyada isbaro muxuu Ruushku yahay iyo sidee baan macaamil loo sameyn karaa adduunyada intii kalaba Maxamed waxaan ka warhayaa in wadamo fara badan oo caalamka qaar kubadda basketballka aad ka soo ciyaartay qaar aad wax ku soo baratay qaar aad ku soo noolayd wadanka Ruushka imika kugu horeysa filaya runtii waa waqtigii markii ugu horeysay dalka Ruushka tago waxyaabo badan oo cajiibana waan runtii kala soo kulmay oo stereotype-ka iyo waxaan ka aaminsanaa iyo waxaan la kulmay runtii farq weyn baa runtii u dhaxeeya marka waana markii ugu horeysay Ruushka tago iyo meel qabowtoona ay yiraahdeen way xilligii qaboobaha ku beegantay miya xilligii qaboobaha ku beegnay -8 -9 bay Moscow mareysay inta badan waaba iska la difnayd bas oo maaha marka Ruushka loo eego marka Ruushka loo eego nasiib wanaag haddana magaaladan lagu qabanayo Sochi waa magaalo cimiladeeda Hargeysa kala tay Moscow sii marnay 2 saac transport ahayn mooyee oo baaxad wadanku leeyahay in xitaa cimilo kala duwan leeyahay halkaas laftarkeeda ka turjumaysa oo magaalada lagu qabto wax baraf ma lahayn haday u badato 12 degree 13 degree balaas leeyahay laakiin Ruushka inta kale waa qabow marka dhalinyarada faraha badan leh dabcan shir kaliya uma soo wada fadhiisanaya ma qayba leedin qaybiye kooxo Abdulsalam qaybo kala duwan ma loo qaybiyay wadan kastaba horta tirooyin badan ka socday imka wadamada Ethiopia ku 6 qof ka socday Kenya 45 Namibia 90 India 120 Masar 130 Pakistan oo kala 140 qof marka waxa loo qaybiyay based on fiilkay ku tacalluqaan dadka specific for example oo kale hadii arimaha laga hadlay dhaqaalaha kale wadamada tiimo ka socda cidii dhaqaaliyahana ama fiilka ku tacalluqla discussion loo sameeyo group discussions waa team loo qabanay dadka presentation ma jiray dadka teamka u fiicnaaday presentation-kooda fiicnaaday award baa la siinay marka waa la kala qaybinay based on cidii sport ku tacalluqda cidii youthska cidii volunteering-ka cidii technology-ga waliba waxaan la yaqaan current technologies oo artificial intelligence ka mid yahay wax dhaqaalaha waxbarashada waxyaabaha kala duwan oo dhan Maxamed waxaad sheegtay wadamada Ethiopia ay ka mid tahay iyo Masar iyo dhalinyaro fara badan oo boqol ka badan ay ka socdeen Soomaali kale meeshii doonaan baa ka yimaadaan shirka ma kugu wehelinay Soomaali kale laba qof ay ugu wehelinay iyo dhowr qof ayaguna laba qof saddex qof oo Djibouti ka socday laakiin markaad eegayso waxaad moodaa dhalinyartu kuma aware aha opportunity ka jira caalamka ee ah in shirar noocan oo kale laga qaybgalo kaasoo faa'iido dhalinyarada iyo mid waxbarasho mid dhaqaale iyo mid nooc kasta ay ku jirto oo qof waxbarasho bilaash ay jaamacadaha ka heli karaya
marka taqriiban 3-4 qof Soomaaliinta inta gaadhaysa way joogtay laakiin haddana waxaan isku dayay bal aniga waqti ka faa'iideynaya bal inaan 7 casho shirku socdo inaan isku dayo bal fiil kasto laga hadlayo bal inaan wixii aan ka qayb qaadan karay awoodayda ka qayb qaato marka waxaad moodaa ka geeska Afrika inayna aware ba ku ahayn hiddiilooyinkan isbedelada socda adduunyada Ruushku rabo inuu macaamil cusub la sameeyo Afrika iyo wadamo badan oo kale oo sida Chinese-ka iyo Turkiga ay doonayaan macaamil la sameeyaan maxamed oo marka Ruushka imka kuugu horeysay si aad ii sheegtay fikradii aad ka haysatay marka la eego iyo waxaad ku soo aragtay bal hadda isbarbar dhig Cabdisalaam fikradan ka haysatay runtii wax badan ba ayaa jiray oo aan aaminsanaa markii hore waxa kamid ah inuu Ruushku meel wada baraf yahay totally aan meel kale ka duwanayn in qof dabeecad adagoo strong person oo ku nool yahay in wadanka gabigiisa dubba miiran iyo wild animal ay joogaan oo kale waliba dubaha baraf nool oo kale iyo wax ku saabsan space-ka marka afarta stereotype horta marka hore haystay marka tagta Ruushka friendly-ga iyo dadku waxay open minded u yihiin way ku tacajabinaysaa runtii qofkii oo garanayn luqadda ku hadasho oo Ingiriisi laftarkeeda dabcan garanayn ayaa isku dayay inuu isticmaalo translation apps mobilkiisa ku jira oo kula hadlaya Cabdisalaam wadanka ka timid wadankaaga wax nooga sheeg ma la soo fadhiisan kartaa aan cuntada la cuntin cuntada Ruushka caan ka tahay tiina noo sheeg ma haysataa wax dhaqankaaga ku saabsan aan kala bedelano iyo dabcan waxyaabo badan oo kale marka cimilada kala duwan iyo dadka aad friendly-ga waxyaabo aad iga yaabiyay ka hayeen kala saartay xagga horumarka iyo nolosha casriga marka aad eegto inkastoo muddo kooban aad joogtay maxaa kaaga baxay Cabdisalaam muddadaan joogay kulli bil ku dhawaad bay ahayd oo wadanka dhan aan ku wareegaynay mararka qaar inaan 12 saacadood wax ka badan tanay saarnaano ayaaba dhacayso wadanka wax badan ka aragno fikradda aan ka aaminsanaa waxa ahayd Ruushka inuu dunia labaad oo kale yahay oo uu dunida horumarto kale inuu industrial kale aanu saawsi hayno Soviet Union-ki wax ka saaraacay ma maskaxiyan ka aaminsanaa laakiin markaad eegto magaalada Moscow kale iyo Grozny horumarka sameeyso kale oo magaalooyinka ugu yarbaad ay ka oran karto waa tacajabaysa runtii horumarka ka jira skyscrapers ay noqoto trainado kale haday noqoto skyscrapers waa fooqi dhaadheera iyo qanaadka u dhaadheer waxa jira technology companies iyagu iska leeyihiin waxa jira kale infrastructure-ka wadanka gudihiisu waxaad moodaa inaan media caalamku aanay focus saarin markasta waxa ka dhacaysa fikrad ah inuu yahay Ruushku meel aan sida uu si horumarsan marka loo eego Europe oo kale laakiin waxaaba dhici karta magaalooyinka qaar inay ka horumarsan magaalooyin badan oo Europe shirka waxa qiyaasaya in qaybaha aad ka uga qayb qaadatay ay kamid ahayd dhinaca sportska ama ciyaaraha oo basketball aad ka soo ciyaartay Cabdisalaam waa runta wayna ambassador u noqotay basketballkii wadanka iyo maxay ahayd tole regionka dhanba dhalinyarteedii nasiib wanaag waxaan u yeeshay clinic 3 soconaya waa mid 2 saacadood oo kale waqtigayga aan koobay oo gelinka dambe oo kale isku dayay inaan galo mid ka mid ah trainers u fiican Russia oo national teamka laftarkooda training oo clinic sameeyay kala duwan oo ay basic fundamental basketball ka noqoto wad garanaysaa kulli haday noqoto big man post moveski oo runtii adiga laftarkaaga aad baa taqaanto haday noqoto shooting drilliski kaana nasiib baan u yeeshay in dad khibrad u leh oo waliba style-kii Ruushka ku ciyaaraya maadaama ay aad xagga Europe ay ugu badanayeen ay ciyaaraan aan chance u yeeshay basketball-ku waa ku fiican yahay Soomaa runtii aad bay ugu fiican waxaan oran karayaaba waa wadamada sida China oo kale waay waxaad arkaysaa dad badan oo 7 foot ka dheer ama 6'9" ka dheer xagga dharka marka adeegiso maxamed Shaawir baa nin gaaban noqday markaa miya dabcan mararka qaar way dhacaysaa in nin gaaban noqdo marka aad bay runtii ugu fiican xagga basketball-ka haday noqoto big man-ka waxa loo yaqaan haday noqoto iyo gaariskiiba imise magaalada soo martay guud ahaan Ruushka guud ahaan waxa soo marnay 3 magaalo magaalada Sochi oo 7 cisho aan soo joognay oo barnaamijka shirku ka dhacayay iyo markii dambe ugu socdaalnay magaalada Chechnya caasimada Chechnya Grozny oo iyadoo 7 cisho soo joognay iyo markii dambe aan ku soo noqonay magaalada Moscow oo toorno loo soo sameeyay magaalada Moscow iyo waxay tahay jaamacadeedii barnaamijkeeda dhan marka 3 magaalana focus ka saarnay Cabdisalaam haddana waxaad moodaa waddanku baaxad male inaad 2 saacadood ama 4 saacadood tareen saarnaato oo soo toosto isagoo dhulka hoos maraya oo soo toosto isagoo webi dul maraya oo soo toosto isagoo baraf maraya oo soo toosto haddana wali qaar in isagoo kaymo wada baraf marayo haddana saacada wili asiditay runtii waxaad garanaysaa in waddanku wadan baaxad leh oo mar qaar magaalooyinka qaar Ruushka gudihiisa ku yaala waxa bay kala hore taqriiban 8 saacadoodba magaalada Grozny oo kale maxamedow
intaan ka xusuusnahay waa magaalo muslimiintu u badan yihiin waa magaalo sanadadii sagaashameeyadii dagaallo sokeeye oo aad u xumaa ay ka dhaceen oo qolyo kacdoon wada dawladda ruushka ay la dagaalamayeen dabadeedna dhulka lagu simay imika waa magaalo sidee cabdisalaanow markaad u eegayso waqtigii ay Grozny soo martay taariikhda waxaa la geliyaaba UNESCO kale waxay gelisay intii dagaalka labaad adduunka ka dambeysay magaalada qura dhulka la samay waxba laga reebin haddana inta markaad eegto horumarkay marayso runtii farq weyn baa u dhaxeeyo waxay tusaale ugu tahay Afrika oo quramaha adduunyada dhan oo picture-kii waqtigaa jiray oo inta badan museum laga madaxafiyo ku saabsan say ahayd 99kii Grozny marka waa la idin tusay caad ma loo tusay halkay maris xitaa meelaha qaar waxaaba u daayeen ay horumar uga sameeyeen way si ay bal dadku uga cibro qaataan iyaga laftirkooda u xasuustaan waxyaabaha ay soo mareen marka horumarka meesha ka jira runtii waa tacajabaysaa wana magaalooyinka aad moodo in speed ku socdaan ruushka marka loo eegayaba magaalo dhulka la samay oo haddana imika marka muuqaal sidee bay leedahay muuqaal aan oran karayo shaariqa magaalada shaariq oo kale way xagga horumarka xagga infrastructure-ka ay noqoto xagga dhaqan dhaqaalaha iyo waxa ka furan ganacsi ka dhex socda haday noqoto bulshada ku nool oo majority 80% Checheniinka waxa ku nool magaalada Grozny iyo nawaaxigeeda iyagoo wadanka 100 iyadoo wadanka tirada guud ee wadanka nool 100 ay 1.4 milyan ay tahay horumarka la sameeyay waxaad qiyaasi kartaa maaha markaad leedahay milyan iyo 400,000 waxaad ka hadlaysaa Chechnya total ahaan population-keedu waa milyan iyo 400,000 80% Grozny ku nool marka magaalada boomingka ganacsi ka socdo horumarka xagga waxbarasho marka astaamihii muslimiinta tusaale ahaan masaajidda badan oo kale ku yaala waxa ku yaala masaajidka ugu weyn ee Yurub ku yaala wuxuu taqriiban qaadayaa 100,000 oo qof in gaadhaysa marka la isku daro gudihiisa iyo dibadda waxa ku tukanaysa saddex masaajid oo weyn baan la geeyay oo aad u yaab sida loo maxay ahayd tolo loo dhisay iyo architecture ka muuqda marka architecture ka muuqda waxa ka muuqda Ottoman architecture waxa ka muuqda modern architecture waxa ka muuqda kii guud ee islaamka ama faraacinta kale laga soo qaatay marka architecture mixida oo si fiican oo casri ah haddana sheegaysa taariikhda islaamka lahaa regionka Kanaskador loo yaqaano ama tii guud ee caalamka oo dhan ba ay ka muuqdaan meel la geeyay oo aad runtii qurux badan kuloo kilibana waan ku keenayna dabcan maxamed oo dee asxaab fara badan oo soo samaysto cusub dabcan cabdisalaam marka meel tagtaba kulli cid cusub aad la kulmaysa adiga laftarkaaga qof travel runtii adduunyada meel badan maray marka aniga la yeegayo asxaab badan oo waxaan ku yiri aad wax badan isweydaarsan kartaan oo xagga waxbarasho xagga sport xagga maxay ahayd toolay China sida noocan oo kale in lagu soo infaad gariyo dib aad ruusha ugu soo noqotaa ama meel la midaba maxay ahayd toolay waan soo sameeyay ruusha kaliya ma ahayd 100 wada meel ay isugu yimaadeen waad garan kartaa connection noocay baad ka sameyn kartaa oo wadanka saad u baahato waxaad ka helaysaa imika qof kaaga sii horeeya ama barnaamijka u baahan tahay maxay toolay ku fududeyn karaya xusuusta ugu weyn aad kala soo noqotay maxaad ku tilmaami lahayd xusuusta ugu weyn kala soo noqday waxa weeye in fikradan aaminsanaay ee ruushku waxay ahayd iyo waxa la kulmay runtii ay kala duwanaadaan oo waxa kamid ah number 1 ka ahba say dhaqanka dadka ka dhaxeeya bulshada iyagoo ruushka laftirkiisaaba laga soo infaad galay gobollo kala duwan qofkii wiliga wadankaaga arag waxa tii aan ku garanayn aan ku maqlinba oo laga yaabo media meelaha qaar bay ka xirantay inuu haddana isku dayo inuu kula xiriiro oo wax ka ogaado dhaqankaaga wax ka ogaado isagoon garanaynba luqada ku gulaala haddana oo isticmaalay mobilkiisa waxyaabaha runtii aad iga tacajabay noqotay inuu ruushku meel wada baraf yahay oo meel istaagaba laftirkeed waxay noqotay wax maskaxda ka soo baxay marka waana wada weyn oo 8 saacad kala horeeya salaana waa taas laftirkeedina wadanka gudihiisa 8 saacadood kala horeeya taqriiban marka waxyaabo badan oo runtii aad iga soo yaabiyay way jiraan oo xasuus ahaan runtii aan marnaba iloobi karin waliba waxa si oran kara how friendly dadku ay yihiin runtii taas ayadana maxamed jahuur aad iyo aad baad mahadsantahay waa hagaagintaasna waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada Hargeysa aan kula yeeshay maxamed jahuur oo kamid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee kubadda basketball-ka ee magaaladan Hargeysa maxamed waxa uu dhawaan ka soo laabtay wadanka Ruushka oo kaga soo qayb galay shirweyne caalami ah oo loo qabtay dhalinyaro fara badan oo daafaha adduunka isaga yimid waraysigana intaas ku dhayeeyay intaanu dib u kulmayno nabadgelyo